sagaal sano ninkaan la shaqaynaya aniga oo isku lafta iyo isku nolosha iyo isku dhiigaan ahayn oo intuu gaari igu soo guray deegaan aan aqoonin iyo dulkeena deegaankiina aan dadna iyo dalna aan ka garanayn maxay la tahay laba rag baa tiiri adigu ka jawaab hadda dhex taagan oo kaleeto waa laakiin haddaad ku dhimato maxaad ku dhiman lahayd ehelullah inaan ahay baan sheegi lahaa saakiin haddaan ku dhiman waayo waxaad ku soo duushay anoo jiifo anoo fadhiya salaad subax baan saaka tukaday waxaan leeyahay ilaahayow ilmo islaam haddaan oo xarig xalaal ku dhashay ma baqayaa cid wax kuu dhibay ma jirto maya wiilashii qabanayay niman yaryar oo fudud baa igu soo toosoo dhalinyaro ah qori faala halkaa iigu dhacay halkaa leefkaana waa lagu dhuftay waxaan ku roray adigu dadkaan leynaysaa mise dowladda Soomaaliya ee maxaanka bandhigda la sheegayo oo Allah qorigan afjarka u geysi liyaatiin inta markaa aribuuna loo muloobo sidii intii la soo wado dhabada soo socda macal shacabka soo dhaxmareen Soomaaliya way israacay waxaan diyaar u nahay naftanada iyo maalkanada dowladda ku yeeray maxaad diyaar u tihiin naftanada iyo maalkanada dowladda Soomaaliyeed yaa ku yeeray qaranka Soomaaliyeed aad baa u mahadsantihiin oo hata aan lahayn dafadhiig iyo hebelow iyo gujug iyo bajabaja iyo hebel baa la xiriirta aan lahayn aad baa u mahadsantihiin